maadaama Somaliland balse waxa la sheegayaa in wafdiga Somaliland iyo wafdiga kasocda dawladda Eritrea oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowr oo ay ka wadiyihiin ganacsiga iyo sidoo kale wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya sidii loo sii wadi lahaa ama kor loogu sii qaadi lahaa sidoo kale waxa la sheegayaa in ka wada hadli doonaan arrimaha ammaanka ee gobolka marka waxyaabahaasi ayaa wafdigaas u yimaadeen hadda oo kula hadlayna waxa ay wafdigaas ku sugayeen xarunta madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargaysa iyadoo wadada hormartay halbowlaha madaxtooyada Somaliland gaadiidka laga xiray isla markaana warbaahinta qaarkood lagu yeeray halkaasi marka wafdigaasi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Eritrea qaabkaasi ayaa u yimid waayahay wararku waxay sheegayaan in martiqaad rasmi ay ka heleen madaxtooyada Somaliland oo u fidiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi madaxtooyada Somaliland kama hadal cashuura warka balse martiqaad rasmi ah ay ka heleen wafdigaas madaxweynaha Somaliland sida ay sheegayaan dadka siyaasadda Somaliland la socda ama dad aan la xidhiidhin madaxtooyada saraakiil ka tirsan ay noo sheegeen marka waxa ay hadli doonaan iyo waxyaabaha ay saacadaha soo socda ayaa la filayaa inay kala hadlaan warbaahinta waa u sheegto madaxtooyada Somaliland ama afiyaan wasiirka arrimaha dibadda Somaliland balse waxa xusid mudan in dawladda Eritrea wafdiga ugu horeeyay yahay tan iyo intii ay Somaliland sheegtay inay ka go'day Soomaaliya 1991 marka arrintaas dadku aad u hadal hayaan waxa in ay tahay Somaliland fursad kale oo furantay oo ah in dalalka mandaqada geeska Afrika ay markii hore isku wacnaayeen dalka Ethiopia haddana ay ku soo beertay maadaama ay timid Somaliland ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay tiro ku dhow 40 kalena way ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyay dagaal tan iyo xalay saqdi dhexe ka socday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa loo kala qaaday isbitaalada degmooyinka Cabudwaq Dhuusamareeb iyo Gurceel dagaalkan oo soo bilowday saqdi dhexe xalay xilli dadka deegaanku ay jiifeen ayaa ka sokow qasaaraha dhimasho iyo dhaawac uu sababay waxa jira qasaaraha hantiyeed waxaana xogta laga helayo deegaanka ay sheegaysaa in jiraan guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay dagaalka inta badan dadkii ku sugnaa magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa isaga barakacay iyagoo cabsi badan ka qabaan dagaalka dhibaata ka soo gaadho dagaalkan oo markii hore ka socday gudaha magaalada ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan hadda dhinaca bari la isku baxay waxaana dhawaqa hubka la isku adeegsanaya laga maqlayaa deegaano ka fog goobta dagaalku ka socdo waxa jira gurmudyo soo kala gaaraya dhinacyada dagaalka u dhaxeeyo waxaana cabsi badan laga qabaa in dagaalku sii daba dheeraado isla markaana uu ku baaho deegaano kale dhinaca kale ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ku aadan dagaalka ka soo cusboonaaday Xiraale